iyadoo uu socdo dadaalo nabadeed oo uu wada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa magaalada Gaalkacyo maanta waxaa laga maqlay israsaaseyn kooban. Israsaaseynta ayaa waxay u dhaxaysay ciidamada maamulada Galmudug iyo waliba Puntland waxaana ay ka dhaceen kontaroolka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo oo ciidamada maamulka Puntland ay ku sugan yihiin. inkastoo ciidamada ay hor fadhiyaan haddana si dhab ah looma xaqiijin karo cidda bilowday xabadda maanta laga maqlay gudaha magaalada Gaalkacyo. maamulka Galmudug ayaa aqbalay 4 qodob oo uu keenay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, inkastoo dhanka Puntland wali ay socdaan dadaalo lagu doonayo in heshiis dhankooda laga keeno. israsaaseynta maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayaanan ahayn mid weyn, balse ciidamada oo isku muuqda ayaa la sheegayaa in xabado isweydaarsadeen. dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo waxaa ka socda kulamo kala duwan oo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxda maamulka Puntland. xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa ah maanta mid degan, waxaana rajo laga muujinayaa dadaalada kala duwan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya halkaasi uu ka wado.